السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن أخياري ويعي وآدم محمد. سيدا كور قبتين عالمك انت وبضن وحالا وذا استعمالا انترنت كاس وحالا استعمال اوجيه انت بدن قديهيسا جوجل اما يوتيوب انت بدن لاستعمالا كداوضا اهان هدان كويديو جوجل مركا لعلا اد wax ku qortid waxa ugu horeeyo ku soo baxo jawaab ahaan ku soo baxo matan koowaad baad ku dhufataa tan labaad baad ku dhufataa mise tan saddexaad baad ku dhufataa mise tan ugu dambaysa aada qofka inuu wax ku qoro mid ugu dambaysa uu aadana wax aad dhif oo naadir u ah su'aasha aan ku weydiinaa baatan ah sidaan wada ognahay daawada ahaan tan koowaad baad ku dhufanaysaa jawaabtaada haddaad ku qanacdid waxa aad raadinayso jawaabtooda haddaad meesha ka heshid ku qanacdid halkaas baad kaga ekaanaysaa haddaad ku qanci weydid baa waxa macquul ah tan labaad ina aadid tan saddexaadna u soo gudubtid google markaan u gudbo dhanka kaleeto qof wax baaray aanan ahayn oo qof wax soo gelinaya aad noqotid waxa u baahan tahay oo aad ku dadaalaysaa in qofka koowaad page-kiisa uu soo baxay inaad noqotid taasuu ku dadaalaya qofka markuu wax soo geliyo ama qof wax soo gelinayo uu noqdo websites ama qof kaleetoba marka aad rabtid google page-ka koowaad ama lambarka koowaad qofka markuu wax baaro uu ku soo baxo inaad noqotid aad jeceshahay ama webkaaga uu noqdo aad jeceshahay laba wado midkood baa la maraa ama laba kooxood baa marto kooxda koowaad lacag bay bixiyaan kooxda labaadna ayaga yimaado meeshaas kooxda lacagta bixisaa waa in xayeysiin loo sameeyo maxaa la yiraahdaa CEO dad la yiraahdo ay ka shaqeeyaan CEO wax la yiraahdaa jiro algawaarizama ku dadaalaan in meeshaas ay yimaadaan lacagaana lagu bixiyaa aqoontaas iyo dadka khibradaas leh si ay ku caawiyaan meeshaas inaad timaadid inta ugu badan dadka alaabaha xayeysiiyo sida website-yada waaweyn Amazon ama Alibaba kuwa baa ku dadaala inay lacag bixiyaan oo meeshaas yimaadaan hadda lacag raadisid Alibaba ku soo baxayso alaab electronic haddaad raadisid Alibaba ku soo baxaysa macnaheeda lacag bay ku bixiyaan shaqadaas kooxda labaadna waxa weeyaan koox dadaal ku bixisay weeyaan kooxdaasna waxa la yiraahdaa koox ku timaada CEO ah hagaajiyeen page-kooda ama video-gooda kuwana waxa keeno view-gooda keena halkaas marka ay YouTuber tahayna sidaas la mid weeyaan sidoo u shaqeeyo Google si la mid uu u shaqeeyaa YouTube-ka mu u baahnid maxaa la yiraahdaa inaad qofka shakhsiyadiisa aad soo gelisid prank aad ku sameeysid dareenkiisa iyo falcelintiisa si aad view ugu heshid uma baahnid YouTube-ka asagana sidoo kaleeto wuxuu leeyahay CEO wax la yiraahdo kaasoo ku saamaxayo in page-ka qaybta koowaad aad ku soo baxdid lacalla hadii la yiraahdo maqaaxi wanaagsan ama farmasi wanaagsan in farmasiga kor uu soo fuul ama maqaaxidaada ay kor soo fuush meesha ugu horeysa si qofka wax baaraya ama daawadaha ah markuu ku dhufto kan koowaad ilaa meesha ugu dambayso uu daawado CEO wax la yiraahdaa jir search engine optimization la yiraahdaa waa algorithm-ku uu ku shaqeeyo inuu aqoonsado YouTube-ka video-gaaga inuu aqoonsado uu ka helo si uu u soo bandhigo dadka tira badan dadkii aad haysatay ma aha macnaheeda video-ga markaad soo dhigtid ama dadka qaar si ay aaminsan yihiin video-ga markaad soo dhigtid inay daawanayaan dadka subscriber-ka ku ah oo kaliya ha ku fikirintaa waxaad arkaysaa qof 5,000 subscriber-kiisu uu yahay ama 10,000 uu yahay 100,000 ay daawato ama 200,000 ay daawato xagee ugu yimaadeen video-gu uu soo dhigaya wuxuu soo fuulay qaybta ugu sareysa maadaama uu aqbalay YouTube video-gu qofkan uu soo dhigay uu aqbalay uu ka helay wuxuu u bandhigayaa dadku asaga haystay dadka tira badan u bandhiga marka sideen ugu dadaali karnaa that is point bontigu u muhiimsana wuxuu yahay sideen ugu dadaali karnaa inuu ka helo YouTube-ka video-geena ama waxaan soo dhigna yeysan kula fududaanin YouTube-ka waa web page-ka labaad ee ugu bax raadinta badan way dadka ay wax intay galaan ay ka raadiyaan 2 billion people waxay yihiin account ku leh maalinkiina haday ugu yar tahay 55 milyan ilaa 60 milyan baa wax ka soo raadis 60 milyan baa wax ka soo raadis marka 60 milyan ina waxaaga u soo bandhigtid maxaa la yiraahdaa ay daawadaan weeyaan waxaad u baahan tahay waa inaad fahamtid YouTube-ka qaabku u shaqeynaa inta ugu badan sideedaba waxa wax soo geliya YouTube-ka
laba qof baa wax soo gelis qof ku fikira kaalayniyahow meherad ka dhigo ka shaqayso lacag ka soo gasho qof ku fikira wax soo geliyo sidoo kaleeto qof rabo waxyaabaha uu soo saaro ama bara inuu ka noqdo ama waxyaabaha uu soo saaro dadka inuu gaarsiiyo jecel macnaheeda ma aha dadkan oo bara ka noqonayo ama ma ahane xayeysiinta wado in aysan ku fikirin inay lacag ka sameeyaan macnaheeda ma lacagna meeshaas way ka soo gashaa laakiin targetkooda ugu weyn waxay yihiin in waxaan fariintan dadka ay gaarsiiyeen taas boontigooda haddii lacag lagama helayo YouTube ka la yiraahdo xataa way ka shaqeynayaan dadkaas halka dadka lacag darteed u soo gal haddii lacag la'aan waa la yiraahdo aysan imaanaynin misaal gaaban aan ku siinaa Apple iyo Samsung iyo Oppo ba wax soo dhigo macnaheeda ma dhihi kartid dadkan lacag bay ka sameynayaan YouTube ka darteed u soo galeen taa inaan fahanaa muhiim ah Soomaalideena aan u soo laabano anaga YouTube-ka wax baan soo gelinaa qaarkood waxa macquul prankeed qof shakhsiyadiisa inay ka soo hadlaan wax qurux badan ma aha in qofka shakhsiyadiisa prank ah ku soo samaysid dareenka uu muujiyo dadka u soo bandhigtid ama dareenkiisa mid laga ganacsanayo qofka saaxiibkaaga ama walaalka ama xaaskaaga uu noqdo aad baan u aragnay dadka qaar ilaa xaasaskooda ay soo dhigeen oo wax laga qurux badan yahay CEO-ga YouTube-ka u shaqeeya ama Google u shaqeeyaan haday ogaan lahaayeen waxyaabaha ma soo dhigi lahayn ama qaab qurux badan ay u soo bandhigi lahayn wax dadkana faa'iido u ah ayagana ay wax ka helayaan taana haddaan halkaa kaga gudbo CEO-ga waxaan rabaa inaan kuu sharxo search engine optimization-ka qaabku u shaqeeyaa YouTube-ka qaabka video-ga aan soo dhigna YouTube-ka uga heli karaa maxaa la yiraahdaa aan wada shaqeyn karna ha u fahmin video marka soo dhigtid nin kaligiisa maharadan ay u furantahay YouTube-ka naftirkiisa waxba idinka wada dhaxeeyo waa wada shaqeynaysan asagana qayb buu ka qaadanayaa shaqada adna qayb baa ka qaadanaysa marka hadaadan fahamsaneen in meeshan share ay tahay waxaad aaminaysaa kaligaaga inaad ka shaqeynaysid waa ku rafaadaysaa marka waxa inaad dadka qaar aad u gudubtid xuquuqdooda in dadka qaar maxaa la yiraahdaa hebel soo jafay hebel waa inaan gala aad tirahdid Soomaalida waa isnaqaana inta ugu badan waxaan maqalnaa maalmahan hebel baa hebel ku dhigan waxa macquul ah dadkan kaamirada gadaasheeda inay ku soo wada heshiiyeen in maxaa la yiraahdaa ay waxaan ay sameeyaan dadkan annagana marka daawanayeen waxaan u fahanaa ninkan inay ishaystaan ninkan inay ishaystaan marka warkana inaan ku dheeraado marabi dulucda iyo meeshan u socdo inaan gaaraan jeclahay sidee YouTube-ka u aqoonsan karaa ama ugu heli karaa waxyaabaha anaga aan soo dhigno waan soo gaabiyay daraasad aan sameeyay maalmo iyo baaris aan waday waxaan ku soo gaabiyay boontiyaal gaaban oo 10 aan gaareenin insha Allah mid aan ku soo bandhigi doonaa waxaan u maleynayaa CEO-ga dadka yaqaana boontiga aan ka hadlay way fahmi doonaa tan koowaad muuqaalka inaan hagaajino muuqaalka iyo maqalka video-ga aad soo duubaysid ina hagaajisid qofka mid uu ka heli karo uu noqdo mid oo maxaa la yiraahdaa HD ku sameeysan uu noqdo quality-ga video-ga uu kor u sareeyo qofka indhihiisa markay daawanayaan qofka daawanayo qaabku u fikira waa ina u fikirtid qofka wax duubay inuu u fikiro hadii uu muuqaalka uu hooseeyo qofka wax daawanayo kama helayo marka waa inaad ka fikirtaa qofka wax daawanayo wuxuu ka heli karo muuqaalkaaga waa in quality-giisu uu nadiif yahay leerar fiican ay haystaan microphone fiicanna aad haysatid oo codkana uu dhageysan karo qofka dadku waxay yiraahdaan inta ugu badan dadka maxaa la yiraahdaa kaamirooyinka iyo videoyada inta badan duuba waxay yiraahdaan qofka muuqaal low ah wuu daawan karaa laakiin ma daawan karo muuqaal aan codkiisa uu daciif yahay hadduu quality-ga xataa uu fiican yahay muuqaalkaas marka tan koowaad waxay tahay YouTube-ka kaga heli karo muuqaalkaaga video-ga uu kaga heli karo u gudbin karo dad kaleeto in muuqaalkaaga quality-giisa aad hagaajisid maqalka iyo muuqaalka aad ka hagaajisid mid labaad anaga inta ugu badan inaan saxna loo baahan yahay waxay tahay uma baahno YouTube video qurux badan maqal fiican leh oo kaliya inaad soo gelisid oo aad bilaa cinwaan aad kaga tag marka aad video soo gelisid waa in video-gaas calaamad uu yeeshaa waxaan ula jeedaa video-ga waa in uu cinwaan yeeshaa 60 milyan baa maalinkii soo booqatay YouTube-ka 60kaas milyan dadku u baahan wax raadinayo ama waxa soo dhigtay raadinayo waa in magac ay ku raadin karaan meeshaas ku jira waa in cinwaanka video-ga aad soo gelinaysid
magac wanaagsan oo la fahmi karo bulshada intooda ugu badan ay isticmaalaan luqad ahaan aad kaga qortaa cinwaan ahaan mithaal gaaban aan ku siinayaa waxa macquul ah dadka inay raadiyaan kelimad luqad ay u yaqaanaan ama luqadda ay ku raadiyaan adna qaab kale aad u soo geliyay waxaan ula jeedaa sidee macallin wanaagsan ku noqdaa macallin wanaagsan labada kelimadood agtaada isku mid inay ka yihiin macquul ah daawada laakiin Google markii la geliyaa ama YouTube ka lagu qoraa waxa macquul ah in kelimad mid kamid ah labadaas ay u raadin badan og yihiin dadka marka waxa loo baahan yahay cinwaanka adiga aad u sameynaysid videogaas in uu noqdo luqad ay dadka inta badan ay raadiyaan halkaas ay ku qoraan waxa jirto website-yo ku shaqo leh keywordkaas ama furaha cinwaanadaas kalimaadka ku kala doorayo inta u badan way isticmaalaan youtuberada caalamka ama SEO-ga dadka isticmaala Google kalimaadka dadka ay gelin doonaan haddii kelimad aan qurux badnayn inta badan la isticmaalin aad u gelidid cinwaan aad ugu dhigtid waxa macquul ah in videogaaga waxyaabaha soo bandhigtay waxyaabo wanaagsan ay yihiin laakiin aan soo buuqanaynin YouTube kana mid uu ka helo uusan noqonin mar walbo cinwaanka cinwaan luqad la yaqaano taagis fiican uu yahay inuu kor soo mariyay u badan tahay waa kan labaad muhiimada uu siiyo SEO-ga YouTube-ka ama uu kaga heli doono videogaaga sidoo kale midda saddexaad description-ka waxaan ka wadaa waxa laga wadaa inaad hagaajisid waa waxyaabaha aad kaga hadlaysid videoga ayagoo qoraal aad meesha kaga qortid dadka youtuberada YouTube-ka isticmaala markay videoga soo geliyaan intaasoo idil way wada maraan laakiin ma kala doortaan muhiimad buuran ma siiyaan videoga muhiimad siiyaan runta hadaa isku sheegno taasina wax uu YouTube-ka inta badan uu kor kaga soo mariyo kuwa kale tama waxaad arkaysaa inaad wax ku qortid meesha searching-ka YouTube-ka wax lagu qoro video ugu horeeyo mid baa 2 galo mid 3 galo mid ugu dambeey maxay ku kala mareen waa waxyaabahan sidoo kale mid afaraad waxay tahay oo ah markaad video soo dhigtid oo shuruudahan saddexda ah hore aad soo martid waxa jirto in dadka ay daawadaan dadka markay daawadaan muddada ay daawadaan uu qiimeeyna haddii dadka inta u badan 60-70 dadka soo galay daawaday videogaaga ay wada dhameysteen wuxuu u bandhigaa dad ka tiro badan dadkaas ka laba jibaaran laakiin marka dadka ay soo galaan daqiiqada koowaadba ama sekonka koowaadba ay ka laabtaan uma bandhiga kulama shaqeyn doono marka waa in aad soo dhigtaa waxyaabaha aad ka hadlaysid wax dadka ay ku qancayaan oo qaadanayo muddada ugu dambeysay waxaad aragteena u maleynaa qof baa wuxuu soo gelinaa sawir u sameeyna videoga sawir markuu u sameeyo sawirkaas muuqaalka ka muuqda qaybta ugu dambeysay videogu ku jira adna targetkaaga waxa noqonayo marka in aad ogaatid sawirka muuqaalkiis laba qof oo la kala qabanayo meesha ku soo gelinaya sawirkooda labada qof la kala qabanayo videoga sekonka ugu dambeeyay inuu aada macquul ah waxyaabaha ay sameeyaan qofka daawanayna maadaama labada qof uu targetkiisa ahaa ilaa dhamaadku sugaya markaas waxay gaaraysaa in videogan dad tiro badan ay daawadaan marka dad tiro badan uu bandhigo taas waxay tahay sheyga afaraad ee YouTube-ka uu kaga helayo ama muhiimada uu siinayo inuu kula shaqeeyo sidoo kale anaga inta badan wax baan soo gelinaa ninbaa subac quraan soo geliyo ninbaa muxaadara soo geliyo ninbaa wuxuu soo geliyaa prankian shaqo ku leeyahay ninbaa comedy iska soo geliya ninbaa wax barasho soo geliya qof walba wax buu soo geliyaa YouTube-ka siiya lacagta ugu badan dadka wax soo dhiga maadaama ay wada shaqeeyaan reedka ugu badan iyo ugu dhuftaa maxaa la kala helaa CPM-ka YouTube-ka ama reedka dadka ugu badan wax ugu dhuftaa waxa weeyaan dadka Englishka luqadda la yiraahdo ku hadlo maxaa yeelay dadka YouTube-ka wuxuu dadka wax ku siiyaa xayeysiin oo videoga aad soo gelisay lagu korsaari doono ba waxaad ku helaysaa lacagta aad leedahay ma aha video inaad soo gelisay YouTube lacag ku siinay wax ay ka faa'iidayaan ma jirto video aad soo gelisid af Soomaali aad ku soo gelisid ama English ama luqad kale aad ku soo gelisid ama English ba xataa aad ku soo gelid ma aha inay wax kugu siinayaan
kaliya waxay wax kugu siinaya xayeysiinta la kor saaray xayeysiinta la kor saaray wadamada Ingiriiska ku hadlo ayaa kaga lacag badan wadamada kale marka Soomaali joogto xayeysiinta lagu saaray maxay noqon kartaa marka English iyo Britain iyo wadamada Mareykanka iyo Canada iyo Australia joogtid ama Germany xayeysiinta la saaray waa nooce xayeysiintaas lacagta ay bixiyaan intee la ekaanaysaa taas weeyaan lacagta lagu siinaa meesha ay ka imaado marka dadka Ingiriiska ku hadlaa waxay ka lacag badan yihiin dadka kaleeto Asia joogo ama Africa joogo ka lacag badan yihiin waatan lacagta xagee laga helaa sidoo kaleeto dadka qaar prankiya iska soo dhigayaan nimbo wax buu soo dhigayaa maxaa wax laga helaa boonti muhiim ah waa qofka YouTube-ka ku cusub maxaa la yiraahdaa aan jiheysneen baan rabaa inaan u sharxo midaan maxaad u baahan tahay oo maxaa la yiraahdaa lacag fiican aad ka heshaa taas aboonti cinwaano waxaa jiro dadka ka hadlaa inta ugu badan ee ka lacag badan yihiin dadka kaleeto idil inta ugu badan dadka lacagta ka sameeya markaan fiiriyay waxaan ku soo koobay 5 ilaa 4 meelaha financial ama xisaabta dadka ka hadlaa inta badan way ka lacag badan yihiin dadka waxyaabaha kale ka hadla waa mid labaad xayeysi kuwa maxaa la yiraahdaa fashionka dharka xayeysiyo ama agabyada waxyaabaha telefoonada ama dharka ama wax walbo la xayeysiyaday dadka wax xayeysiyaa way ka lacag badan yihiin dadka kale sidoo kale waxyaabaha la isku qurxiyo dadka soo bandhig tan saddexaad waxay tahay dadka alaabaha waxyaabaha jirdhiska health and fitness waxyaabaha la yiraahdo caafimaadka ka hadlo ama jirdhiska ka hadlo way ka lacag badan yihiin dadka howlahaas ka hadlo dadka kale tan saddexaad tan afaraad waxay tahay waxbarashada dadka ka hadlo saana wax macallimiintu wax barto xisaabaha ahaato ama maadooyin kale ta ahaato maadaama aad soo bandhigaysid waxbarasho oo arday kugu taxan iyo maadooyinka aad soo gudbinayso maadooyinka la barta ay tahay waa ka lacag badan tahay dadka maxaa la yiraahdaa waxyaabaha madadaaladii waxyaabaha kale soo dhigo sidoo kale kan afaraad waxaan u maleynayaa inay tahay ganacsiga online ka ah waxyaabahan dadka ka hadlo saana loo ganacsada website-yadana laga ganacsada dadka sharxo waxyaabaha ganacsiga way ka lacag badan yihiin dadka waxyaabaha komediyada iyo waxyaabaha lagu qoslo soo bandhigo haddaan soo koobo intaanu barnaamij haddaad martid oo cinwaanada aad ka hadlaysay ay ku waan yihiin fiidiyoyada aad soo dhigaysid quality-gooda aad hagaajisid sidaan ka soo hadalnay fiidiyoyadaada waxay soo aadi doonaan kor qaybta ugu sareysa marka qofku uu geliyo maxaa la yiraahdaa ganacsi fulaan ama mahna waxyaabahaasaan u baahanahay ama su'aal ahaan uu soo geliyo su'aashaasna cinwaanka aad muhiimadda ugu dhigtay meesha kore ugu sareyso soo fuulaya waa laaziman uma baahnid in branki aad samaysid uma baahnid in qof kale xuquuqdiisa aad u dhacdid aad caaysid aad wax ka sheegtid uma baahnid kaliya waxaad u baahan tahay in dhinacay wax ka jiraan aad ogaatid oo aad hagaajisid waana sii wadi doonaa qaabka loo kala doorto cinwaanadana insha Allah iyadoo muuqaalan soo bandhigi doonaa socod wanaagsan. Assalaamu calaykum.